daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono toddobada xeebood ee adduunka ugu khatarsan. haddaba waa kuma xagiisa ku kala yaalaan toddobadaas xeebood. sanad kasta waxaa u dalxiis taga xeebaha adduunka ku yaala malaayiin qof oo ka kala yimaada dalal kala duwan si ay u soo qaataan jawiyo kala duwan oo farxadeed. haddaba jawiyadaasi dad badan ayaana u suuro gelin oo kala soo noqday ciil iyo murugo, taas oo ay u sabab tahay xayawaano soo weeraray oo khatar ah oo ku dhex jira biyaha dhexdooda. haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa xeebaha ugu khatarsan iyo xayawaanadu siday ugu kala nool yihiin. aynu ku bilowno xeeb ku taalla dalkaasi South Africa oo loo yaqaano Fish Hoek ayaa waxa ay tahay mid ka mid ah xeebaha ugu khatarsan caalamka, taasoo ay ku nool yihiin libaaxyo aad u waaweyn kuwaas oo lagu rabaayadeeyo qaarna ay yihiin dad cun. haddaba libaaxyadan ayaa waxa ay ku nool yihiin biyaha guntooda. dad badan oo dabaasha oo quusa biyaha dhexdooda ayaa waxaa haleelay libaaxyadan oo cunay, qaarna dhaawacyo u geystay. xeebtan waa mid ka mid ah xeebaha ugu khatarsan dalka South Africa, aadna la isaga ilaaliyo waxyeeladeeda. sanadkii 2010 ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku cuneen xeebahani dad ka badan 21 qof. haddaba xeebahani waa mid ka mid ah xeebaha ugu khatarsan adduunka, gaar ahaan dalkaasi South Africa. daawadayaal, xeebta kale ee lixaad waxa weeye xeebta Queensland ee ku taalla dalkaasi Australia. xeebtan ayaa waxay caan ku tahay laba kalluun oo aad u khatar ah, kuwaas oo dadka marka ay qaninaan ku sii daayo sun aad u daran. suntan ayaa waxa uu sii daayaa qofka marka uu qanino, waxaana qofku noolaan karayaa muddo ka yar ilbiriqsiyo marka uu qanino. xeebtan ayaa waxay noqotay xeebaha ugu khatarsan caalamka, taas oo aad la isaga ilaaliyo waxyeeladeeda. haddaba dowladda dalka Australia ayaa ka soo saartay sharciyo dhowr oo lagu ilaalinayo dadka dalxiisayaasha ah ee ka kala yimaada adduunka dacaladiisa, taasi aanay wax u soo gaadhin dadkaasi ama waxyeello u soo gaadhin dadkaasi. sharciyadaasi oo ah in xayndaabyo waaweyn loo sameeyo xeebahaasi. xayndaabyadaas oo waxaa ka mid ah in lagu xardho goobo ka mid ah xeebaha lagu dabaasho. xeebtan waxay ku taallaa dalkaasi Thailand, waxaana ay caan ku tahay jawi aad degan oo macaan, taas oo ay dalxiisayaal badan soo jiitay indhahooda caalamkana ka kala yimaada. meeshan waa meesha ugu quruxda badan ee dalka Thailand, waxaana haddaba ku gadaaman khataro aad u fara badan oo aan indhaha caalamku war u hayn ama qofka ku cusubi. khatartaa waxaa ka mid ah masas aad u dhimac weyn oo ku jira badda hoosteeda ama xeebta hoosteeda. masaskan ayaa waxay noqdeen kuwa sun badan soo daaya marka ay qofka qaninaan, qofkuna uu si fudud u dhiman karo. haddaba masaskan ayaa waxaa loo nisbeeyaa inay yihiin kuwa caalamka u khatarsan. Sibolat Beach oo ku taalla magaalada Hong Kong ayaa waxay noqotay meesha ugu khatarta badan ee caalamka, taas oo leh mawjado aad u fara badan ama biyo dhac khatar ku keeni kara dabaashaha ama qofka dabaalyahanka ah. sanad kasta waxaa yimaada in ka badan 20,000 oo qof xeebtan, waxaana ay leedahay meelaha ugu khatarsan. mawjadaheeda khatarta ah ayaa noqday kuwo khatar ka dhigay xeebtani in noqotay kuwo aan la isku hadlayn karin. haddaba xeebtani ayaa waxay caan ku tahay mawjado aad u waaweyn, kuwaasoo mararka qaar naftaada galaafan kara. dowladda dalkaasi Thailand ayaa waxay ka soo saartay sharciyo cusub dadka dabaalanaya, iyadoo sanadkii 2010 ay badbaadisay 180 qof in ka badan. waxaa ka mid ah xeebaha kale ugu khatarsan Cable Beach Australia, taas oo ay ku nool yihiin tiro yaxaasya oo fara badan oo dadka dhaawacyo u geysta. xeebtan ayaa waxay tahay xeeb ay ku badan yihiin yaxaasyada, taas oo aan la isku halayn karin waqtiyada lagu dabaalanayo ama tamashlaynta lagu jiro. yaxaasyadan ayaa waxay noqdeen kuwa ugu khatarsan caalamka, kuwaas oo weerara dadweynaha dalxiisayaasha ah. dowladda dalkaasi ayaana dhowr sharci ka soo saartay yaxaasyada in laga ururiyo xeebta, waxaana dhaawacyo soo gaarsiiyeen yaxaasyadaasi dad kala duwan oo ajnabi iyo isugu jira muwaadiniinba.
dhaawacyadaasi waa kuwo aad ay la ildaran yihiin boqolaal kun oo qof oo dalka u dhashay oo dadka u dhashay ah waddankaasi. kaalinta labaad waxaa ku jira Rablis, xeebta loo yaqaano, taasoo ay ku badan tahay wasakhowga ama warshaduhu kusoo daayaan wasakhow aada u daran, kuwaas oo aan noqday xeebaha ugu khatarta badan. sanadkii 1920 ayaa waxaa xeebtaasi laga sameeyey dhismooyin fara badan, dhismooyinkaas oo u badnaa warshadahaasi waxay sababeen inay soo daayaan wasakhow aada u fara badan, taasoo xeebta lagu soo daayay bulaacado aan muhiim ahayn, xeebtana ka dhigay ta ugu khatarsan caalamka. ilaa haatanna ma jirto xeebtan wax sharci ah oo laga soo saaray, taasoo ay ku dhinteen xayawaano aada u fara badan wasakhowga dartiis. Virginia Beach waa xeebta ugu nadiifsan xeebaha dalka Mareykanka, waxaanay ku taallaa meel istiraatiiji ah. xeebtan waxaa usoo dalxiis taga dalxiisayaal aada u fara badan sanadkii, waxaana ay leedahay ay khatar ku tahay dawacooyin loo yaqaano foxes, kuwaas oo ugaarsada dadweynaha meeshaas dalxiisayay, waana xeebaha ugu nadiifsan dalkaasi Mareykanka. taasna waxay ku gashay Virginia kaalinta koowaad iyagoo leh dawacooyin aada u khatarsan. oo daawadayaal, barnaamijkan waad kala socoteen channelka Dr. Isnacay Show. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij mid lamid ah, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.